السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada haddii aad nagu cusub tahay si aad ula socoto fiidiyowada dambe saar subscribe. maanta cashirkeennan waxaynu ku eegi doonaa Photoshop. sidaynu ognahay graphic design ama Photoshop waxaa laga isticmaalaa adduunka oo dhan. waxa uu noo qabtaa howlo fara badan. runtii section kasta oo ka mid ah IT-ga ama caafimaad ha noqdo ama qeyb kasta ha noqdee, runtii qeyb weyn ayuu ka noqday Photoshopkii. taxanaha waxaynu ku eegi doonaa qaababka loo sameeyo Photoshop ama isticmaalka Photoshop. halkan waxaynu ku bilaabi doonaa Photoshopkeena ugu horeeyay. si aad ula socoto fiidiyowada dambe saar subscribe. ugu horeyn, si aynu ula soo baxno warqad cusub ama page horta marka hore waxaynu ku shubaynaa softwareka Photoshop. qof walba waan rajeynayaa inuu ku jiro. waxaynu tegaynaa file, waxaynu leenahay new. halkan waa name, waa magaca uu yeelanayo filekaasi. tusaale ahaan haddaynu u bixino cabdi oo kale, cabdi wuxuu noqonayaa magac. intaa kadib waxaynu dooranaa warqadda inta widthka iyo heightka uu yeelanayo ama dhererka cabirka uu yeelanayo, inagoo sometimes pixel isticmaalayna. anigu waxaan isticmaalayaa photo, waxaan isticmaalayaa kan saddexaad, inagoo halkan eegayna MB intuu yahay. resolutionka waan ka yaraynayaa markaas si uu u yaraado sawirkaasi. intaa kadib waxaan leeyahay hadda cabdi waan la soo baxay. waa inaan haddaba sawiraantii soo qaata. waxaan leeyahay open. labadaas sawir aynu edit garaynaynaa maanta. waxaynu rabnaa inaynu hal sawir ka soo saarno. open baan leeyahay. marka labada sawir midba halkan ayuu ii soo fadhiisan doonaa. sawirkan hadda halkan iga muuqda ayaan rabaa inaan sawirkaa kale aan geeyo. horeynkan baan qaadani, waxaan la tegayaa cabdi. warqadii aan soo qaatay si aan ugu fadhiisiyo, dabadeed waan leekeysiinayaa meeshii aan doonayay. inter baan leeyahay ama ayaan ku dhufanayaa. sawirkayga labaad ayaan tegay. hadda kan uma baahni, waan iska xidhayaa. sawirkaygan labaad ayaan rabaa inaan soo qaato. badh ayaan kasoo goosanayaa si aan ugu apply gareeyo sawirka kale ee halkaa ii yaala. waxaan isticmaalayaa calaamadda halkaa igu qoran oo loo yaqaano magic wand tool. waxaan ka delete garaynayaa backgroundka. intaa markaan sameeyo, maadaama uu kan cadaan u eegyahay, waxaan sameynayaa inaan ka delete gareeyo wixii dheeraada.
waayahay waxaan rabaa inaan dhulka ama backgroundka dambe aan geliyo ama uu u ekaado mid maxaa la dhahdaa ku dul samaysan videoga. okay, intaa kadib okay markaan siiyo dib aan uga soo noqdo. okay, marka wuxuu u ekaanayaa sawir iyo inay waxaweye hal meel ku wada jiraan. okay, kan laftigiisaan koobi ka qaadayaa. tegayaa image, waxaan leeyahay edit, waxaan leeyahay transform horizontal, xagga kale ujeedinayaa. midabkana waan ka bedelayaa, waxaan leeyahay hue and saturation, midab aan casaan ahayn baan ka dhigayaa. okay, hadda waxa uu eegyahay sawirkaasi in laba qof ay soo socdaan, waxaweye labada yaryarna iyaguna ay midba meel ku ciyaarayaan. maanta photoshopka intaasaynu ku eegaynaa. haddii aad nagu cusub tahay saar subscribe si aad ula socoto fiidiyada dambe aynu ku sameyn doono photoshop sidan oo kale ah iyo weliba casharo aynu ku bilaabi doono.